bilowgii sanadkan doorashadiisii Dhuusamareeb ayuu markii ugu horeysay maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor. garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda, ururada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Abshir Bukhaari ayaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii maanta ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho madaxweyne Axmed Kaariye Qoorqoor. waxaa sharaf noo ah maantay annagoo ka kooban xubnaha labada heer ee dowladda federaalka ah oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiintii baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, wasiiradii labada heer, maamulkii gobolka Banaadir, dhammaan warbaahinta iyo dhaqanka iyo dadka dowlad goboleedyada kale ka socda, culamaa u diinka, bahda warbaahinta, dhammaantood intaba aanoo magacooda ku hadlaya waxaan sharafno inaan soo dhaweyno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Axmed Qoorqoor oo runtii muddo dheer aan sugaynay inuu halkan mar noogu yimaado. shaqadii iyo howlihii uu ka soo waday Galmudug qayb ka mid ah maanta halkan ugu soo gaaray. waxaan rabaa ujeedka aniga hadalkaan u qaato wuxuu ahaa soo dhaweyn. waxaan halkan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha annagoo halkan u wada joogna u soo wada gudbinayna salaan soo dhaweyn. mudane madaxweyne ku soo dhawow. imaashihiisa Muqdisho kadib madaxweyne Qoorqoor oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweyntan diiran ee loo sameeyay. inta ka soo qayb gashay soo dhaweynteena waa idin mahad celinaynaa. soo dhaweynta diiran, walaalnimada iyo sharafta badan nagu soo dhaweyseen, muddada noo taagneedeen qoraxda, aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa. muddo dheer kadib mudanayaal maantaan ku soo laabtay Muqdisho idinkoo og howlaha iyo shaqooyinka aan ku maqnay muddada dheer oo ka jirtay ama aan ka wadnay Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya. sharaf bay noo tahay inaan maanta idiin nimaadno annagoo nabada isu soo laabanno. safarkan halkan aan ku imidno waa safar shaqo oo ka mid ah shaqooyinkii iyo howlihii aan wadnay qayb ka mid ah. waan isbaraysanaynaa, talooyin badan oo loo baahan yahay ayaan ka tashan doonaa, waqti baan isla qaadanaynaa. shaqada aan u nimid baad qaybta ugu weyn ka tihiin. mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinayaa. maanta warka waan sii gudbiyo la sugumaye gadaalu jiraa warka haddii laa yidhaahdo. aad iyo aad mahadsan tihiin. soo dhaweyn sharaf leh, soo imaad wanaagsan, wada tashi habboon. Cabdiwaxiid Cabdulaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.